السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحولين channel كده دوينها يوتيوب isbedel waxaa jiri kara caadooyin aad leedahay isla markaana aadan jeclayn niyadda aad ka nacib tahay hase ahaatee nafshadaada markaad isweydiisid oo istiraadid caadadan suurtagal ma tahay inaad iska bedeshid ay maskaxdaada kugu jawaabto maya waa ghayru macquul suurtagal ma aha isla markaana aad isdhiibto oo iska aamintaba inaadan isbedeli karin xagga fikirkaasi bedelkiisa ay suurtagal tahay inaad isbedeshid walibana aad isu bedeshid si fudud oo ka duwan sidii ay maskaxdaada iyo aragtidaadu ay ku sheegaysay markii hore tusaale ahaan wiilkan aad u jeedaan waa wiil buuran sababaha ugu waaweyn ee keentay wiilkani inuu sidaan oo dhan u naaxo ayaa waxa ka mid ah waa wiil aad u cunto jecel wuxuu arkaba wuu isdhaafiyaa intaasi waxa kaaga daran waxa uu qaraabo la yahay reer uu ama taadku u furan yahay oo aad u cunto jecel oo ay dhibaatada naaxitaanku wada saamaysay dabcan guryo kala duwan ayay galaan hase ahaatee usbuuc kasta way isku yimaadaan waxay isugu yimaadaan si ay cunto badan u samaystaan ay u dhargaan qof waliba wiigaasi imanayana waxa uu soo qaadaa wixii cunto ah uu awoodi karayo bal tafiiriya ninkan marka uu socdo dhibaatada haysata albaabada toos ma gali karo sida dadka caadiga ah ilaahay isu gudbo dhinac subxaanallah yacni waa rafaad haatan isagoo xaaladaasi ku sugan isaga iyo gabadhiisa amaan idhaahda xaaskiisu waxay u socdaan inay ka qayb galaan kulankii cunista ee iyaga iyo qoysaskooda haatan waxa ay dalbadeen 10 xabbo oo pizza ah hadda waa 10 xabbo waxayna u socdaan inay geeyaan oo la wadaagaan qoysaskoodii kale maadaama qoys walba laga rabo marka uu kulanka imanayo inuu cunto wixii uu awoodo hore u soo qaado laakiin waxa ay keeneen dhowr xabbo oo baaqi kala aaway oo magaarigiiba ku soo dhaxuneen intii ay wadada ku soo jireen oo kaliya bismillaah goobta marka la isugu yimaado islaantan ayaa dhinaca talada looga dambeeyaa cuntada marka cunada lagu bilaabayo iyada iyo amarka laga sugaa sababta ma garanayo malaha dhinaca da'da ayaa lagu ixtiraamaa mid kalena ku darso way buuran tahay waxa meesha fadhiyo dhan iyada ayaa ugu buuran marka ay socoto inta u dhaxaysa guriga iyo gaariga waxa ay fuushaa iyada oo naqaska iyo hinfaadka ka dhacaya aad moodo inay 5,000 oo kiiloomitir soo ordaysay haddaba aanu soo laabano wiilka ay diiraddu inoo saaran tahay ninkan markuu xaaladiisa u fiirsaday ayaa u fikiray waxa uuna go'aan ku qaatay in uu noloshiisa sidan ka bedelo marka hore cuntadii faraha badneed ayuu iska yareeyay iyaday ku adag tahay dadka buurbuuran ee cuntada faraha badan la qabsaday inay cuntada iska yareeyaan waxa uu go'aansaday inuu noloshiisa sidan ka bedelo waxa uu go'aansaday inuu dadka si caadi ah u dhax socon doono waxa uu go'aansaday inuu gaarigiisa si bilaadhib ah u fuuli doono waxa uu go'aansaday inuu albaabka si caadi ah u gali doono waxa uu go'aansaday inuu si caadi ah u shaqo tagi doono naftiisa waxa uu u sheegay uu u cadeeyay in ay ka dhaxayso dhuubni amba dhimasho ugu dambeynna naftiisii wax weyn ayuu ka bedelay waqtiyan sabab badneenba jirkiisii waa isbedelay waxa uu bilaabay inuu si caadi ah isaga shaqo tagi karo si caadi ah oo bila rafaad ah u noolaan karo albaabkii uu dhinaca rafaadka u gali jiray hadda waxa uu galaa si caadi ah sababtu maxay tahay go'aan cad ayuu qaatay taasina micnaheedu waxa ay tahay haddii aad hadaf leedahay meel aad hiigsanaysid ambaba se aad rabtid inaad isbedel weyn samaysid waxa idinka dhaxeeyay waa dadaal adag iyo joogtayn buuxda Jerome wiilkani muddo haatan laga joogo ku dhawaad 9 sano ka hor ayaa waxa uu go'aansaday inuu ka baxo college uu dhiganayay deetana asxaabtiisii isku barteen galaaska ayaa waxay ku yiraahdeen arrinkan aad ku dhaqaaqday bari ayaad ka qoomamayn doontaa waxa ku dhacay niyad jab waxaanu ku dhawaaday inuu nolosha ka qoosto hase ahaatee maalin maalmaha ka mid ah ayaa taleefankiisa gacanta waxa uu ku soo dejistay app lagu magacaabi jiray Vine aabkaasi oo waqtigaasi adduunka caan uga ahaa iyadoo isla markaana inta badan lagu soo upload gareyn jiray muuqaalo kooban oo madadaalo ah inkastoo aabkaasi haatan saaxada social media ka baxay wiilkan ayaa waqtigaasi waxa uu application-kaasi ka samaystay account waxa uu soo galiyay muuqaalo kooban oo qosol ah kuwaasi oo dadka aad u soo jiitay intaasi kadib waxa uu isu arkay inuu yahay comedian amba madadaaliye waxa uu bilaabay inuu soo galiyo muuqaalo badan oo wada qosol ah isagoo isla markaana intuu taleefankiisa gacanta qaato airborada iyo maqaaxiyaha iyo meelaha dadku ku badan yihiin muuqaalo kooban ka soo duubi jiray kuwaasi oo dadka aad uga qoslin jiray muddo yar gudaheeda waxa uu noqday nin aad loo yaqaan waxa uu yeeshay taageerayaal aad u badan oo daafaha dunida ku kala nool waxa ay isbarteen ashkhas badan oo adduunka caanka ah min majaajilaystayaal madax ilaa iyo fanaaniin hase ahaatee wiilkani waxa uu leeyahay markaan isbarbardhigay noloshayda dhabta ah ee ku noolahay iyo noloshayda dhinaca internetka waxa ay soo baxday in ay noloshayda internetku aad uga sarreyso noloshayda dhabta ah noloshayda waaqica ah ee ku noolahay waxaana go'aan ku qaatay in aan social media guud ahaanba aan qashinka ku daro kuna noolaado noloshayda dhabta ah ee ku noolahay
isagoo isla markaana magaalada ka baxay oo furtay goob isla markaana uu ku dhaqdo noocyada xoolaha ah ay ugu horeeyaan digaagaduhu muddo kadib ayaa waxa uu ku tilmaamay noloshiisii hore in ay ahayd nolol ay ku dheehan yihiin rafaad olol iyo waqti lumis wiilkan ayaa waqtigii social media joojinayay waxa uu kansalay kaambayna malaayiin dollar ah oo la galay shirkado waaweyn isagoo isla markaana malaayiintaasi dollar ka doorbiday digaagadaha uu iska dhaqdo dadkii ayaa yaabay taageerayaashiisii ayaa isweydiiyay inuu nool yahay iyo inuu dhintay balse muddo kadib waxa uu ogaaday in uu magacaasi iyo caanimadiisaasi uu ku samayn karo wanaag isagoon isla markaana dib ugu laabanayn social mediaha iyo ruwaayadihii uu samayn jiray waxa uu noqday speaker waxa uu noqday dhiirigeliye isagoo isla markaana jiilkan cusub ee dhalinyarta u iftiimiya nolosha dhabta ah una sheega in ay social mediahu tahay cadowga horumarka iska dayntiisa social mediaha iyo inuu isbarbar dhigo noloshiisa dhabta ah iyo tan social mediaha ayaa waxa sabab u ahaa muddo ku dhawaad sanad ka hor inuu arkay oo ka damqaday abaarihii muddo sanad ka hor ka dhacay dalkeena isagoo isla markaana aad uga damqaday roob la'aanta abaarta iyo markuu arkay xoolaha baaba'aya waqtigaasi intii uusan social media ka bixin ayaa wuxuu isku dayay inuu keeno fikrad wanaag uga faa'iideysto malaayiinta qof ee daawada waqtigaasi ayaa isaga iyo asxaabtiisu waxay iska ururiyeen lacag iyagoo isla markaana raashin qaaday oo lugahooda ku geeyay goobihii abaaruhu ka dhaceen intaasi kadib waxa uu soo jeesaday dhinaca wanaaga waxa uuna guud ahaan iska xidhay albaabka social mediaha مالك يوم الدين وإياك نعبد وإياك نستعين نستعين اهدنا الصراط المستقيم نستعين نبقى دون الدين والضالين ودوري آمين